الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي لحية اللحدانات هي كتاب كان حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله. عاقبة الحرمات هل كان وحشاق كل شيء معلومة أما حكمة عوان لوغا دقاي عربت أي leedahay شيء إلهي كحرمي oo lala yimaado oo laga xishoon waayo oo la dhex galo oo la dilaaciyo dhibka ay leedahay. kayfa yantahiku cabdun xurumaat illaah, sideebuu wuxuu yihi sheekhu qofku u dhexgeli karaa oo intihaak iyo qararin iyo dilaacin iyo dhexgal ugu samayn ilaahay shay uu ka xarimay oo isaguna uu doonayo inayna dadku isaga marka xurumaadkiisii iyo waxyaabihiisii ayna dhexgelin ayna dilaacinin. sidee buu qofku ilaahay xaqiisii shay ugu noqonayaa uu ihaanaysto oo uu u doonayaa inayna dadku isagana ihaanaysanin? ma suuragal ba? maya wey, suuragal ma ah. haddaad doonayso in ummaddu ay ku daayaan oo xurumaadkaagii iyo waxaagii ay cafiyaan oy garab maraan, xurumaadka ilaahay ilaali. haddaad doonayso adiga inaan lagu ihaanaysaninna ilaahay xaqiisii ha ihaanaysanin. wuxuu ku sheegay sheekhu macluumada kitaabkiisii addaawa dawaa. haddaba maxaarimullah, maxaarimtu waa maxay? waxaa la yidhaahdaa hiya kullu maa xaramahu allahu tacaala min asakaa'iri waalkabaa'ir. waa shay kasta oo alla naga xarimay oo ashyaada wixii yaryaraa iyo wixii waaweynaaba xurumaad baa la yidhaahdaa. sida mathalan ka nadar, sida eegmadii xaaraanta, waxyaabihii xaaraanta oo indhaha lagu fiirinayay, ikhtilaadkii rag iyo dumar isdhex boodayey, tabarujkii iyo dharkii oo dumarkii oo dhar la-aan iska soconayay, zinadii, ribadii, rashwadii iyo laaluushkii, dulmigii, sariqadii iyo xatooyadii, kiibada, xantii, namiimadii iyo isku dirkii, waxaasoo dhani waxay ka mid yihiin xurumaadka la sheegayo wey. ayib, waxaa la yidhaahdaa allah subxaana watacaala yacni rasuulka aan ka soo qaadno, rasuulku maa kaana yantaqimu linafsihi ila an yuntahaka shay-un min maxaarim illah. rasuulullahi sala allahu alay wasalam isaga markii wax lagu sameeyo ma uusan aarsan jirin ilaa in ilaahay diintiisa loo gafo oo xaq min xuquuqillaahi alla qarariyo, la dilaaciyo. markaasuu rasuulku xanaaqi jiray, uu kici jiray, uu u aari jiray. xadiidkii thawbaan waa xadiid aad iyo aad runtii u xanuun badan, una baahan inaan ogaano. sheekh alalbanina uu saxiixiyey. wuxuu rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi, waxaan ogaanayaa aqwaam oo min ummatii yaatuuna yowma alqiyaama bixasanaatin amhaala jibaali tihaama jacalaha allahu habaan manhuura. subxaan allah. waxaa jiri doonaa dad ka mida buuri ummadayda, dadkaasoo la iman doona maalinta qiyaamo, bal u fiirsa, xasanaad wax badan oo fiican bay la imaan doonaan, oo buuraha waaweyn sida buurta tihaama, yacni jabal weyn wey, adigoo yidhi buurtaa weyn oo kale wax la eg oo wanaagabay keensanayaan, laakiin ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka dhigayaa habaan manhuura, wax la firdhiyey, la afuufay, ciiddaasoo kale laga dhigaya, waxba laga soo qaadi maayo. asxaabtu aad bay u baqeen, waxay dhaheen yaa rasuul allah, noo sife kuwaas, see wuxuu jiraa, noo sheeg. markaasaa wuxuu yidhi, waa aqwaamun, waa dad idaa khallow bimaxaarim illaahi intahakuha. waa dad haddii ay ilaahay subxaana watacaala wixii uu ka xarimay jaanis u helaan, way dhexgelayaan. zinayna ka dhowrsanaynin, ribayna ka dhowrsanaynin, xaaraan iyo sariqiyo xatooyayna ka dhowrsanaynin, xumaan iyo xan bayna ka dhowrsan, wax ay ka dhowrsanayaan male. jaanis hadday helaan way dhexgelayaan. waa dad marka muuqaalkooda markay dadka la joogaan dad fiican la moodi oo wax fiican isu sawiraya oo iska dhigaya, laakiin jaanis xumaan hadday u helaan waxay noqonayaan dadkaas xunxun bay noqonayaan. ayib, marka taasina waa arrin wallaahi maalin walba waxaad maqli waxyaaba cajab badan ayaad maqlaysaa.
waxyaaba cajab badan badan dadkan xitaa diinta ilaahay ka muuqanayso oo ahlu cilmiga loo yaqaano qaarkood oo qaylinaya maalin iyo habeen kuwa qaylinaya oo waxaa lagu sheegayaa xumaanta ay samaynayaan mooryaantu ay ka xishoonayaan marka qaarkood. ilaahay subxaanahu watacaala hayna xifdiyo, qowlkeenna haynoo xifdiyo, ficilkeenna allah haynoo xifdiyo, ilaahay subxaanahu watacaala qalbiga allah haynoo xifdiyo, fitanta maa dahara minha wamaa batanba allah haynaga ilaaliyo, thabaat fi diin illaahi ilaahay hayna siiyo, sugnaan allah subxaanahu watacaala hayna siiyo, ilaahay subxaanahu watacaala muqriyaadka iyo waxyaabaha dadka fidneeyo oo dhan allah haynaga ilaaliyo. jazaakum allahu khayr, baaraka allahu fiikum.